wasaaradda ganacsiga dalka shiinaha ayaa maanta sheegtay in uu shiinaha iyo maraykankuba isku raaceen dibudhigidda qayb ka mid a cashuurihii dheeraadka ah ee labada dalb uu midba midka kale ku soo rogay alaabaha ay isku soo dhoofiyaan. afhayeen u hadlay wasaaraddaasi gowa feng ayaa shir jaraa'id oo qabtay maanta ku sheegay in haddii wadaxaajoodiyada labada dhinac ay isku raacaan inay heshiis gaaraan ay labada dal ee maraykanka iyo shiinuhuba yareyn doonaan si isku mid ah oo isku wakhti ah cashuurta la saaro alaabaha ay isku soo dhoofiyaan. waxaana labada dal ay dhowr jeer hore isku soo rogeen cashuuro dheeraad ah oo la saarayo alaabaha labada dhinac ay isku soo dhoofiyaan oo ku kacaya balaayin doolar. la taliyaha dhinaca ganacsiga aqalka cad ee maraykanka peter navarro ayaa v o a u sheegay in wejiga koowaad ee heshiiskaasi uu noqon doono maareynta cabashada maraykanka ee siyaasadda ganacsiga shiinaha. madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa ku goodiyey in uu sii xoojin doono xiriirka militari ee kala dhexeeya xukuumadda moscow haddii maraykanka uusan qaadin cunaqabataynta saaran iibka diyaaradda dagaalka ee muhiimka ah. digniintan ayaa imaanaysa ka hor kulan la qorsheeyey inuu toddobaadka soo socda dhex maro erdogan iyo madaxweyne donald trump. turkiga ayaa lagu wadaa inuu iibsado diyaaradda dagaalka ah ee nooceedu oo ah noocii u dambeeyey ee ruushka lagu farsameeyey ee nooceedu yahay su-30. waddanka ayaa horeyba waxa uu uga xanaajiyey xulafadiisa reer galbeedka isagoo ka soo iibsaday nidaamka gantaalaha ruushka ee loo yaqaano S-400. markii aan iibsanay S-400 qofna ma aanan weydiisan ogolaanshiyo, marka haddii aan go'aan qaadanno waan iibsan doonaa Su-30 ayuu erdogan ku sheegay hadal qoraal ah maalintii Talaadada. markana baydhabo, iyadoo dowladda soomaaliya ay shalay soo saartay digniin ku aadan saameynta fatahaado ka dhalan karaya roobab xoogan oo ka da'a soomaaliya, ayaa xalay roob xoogan waxauu ka da'ay qaybo ka mid a gobolada dalka, waxaana fatahaadaha ay kusoo rogeen xaafadaha magaalada baydhabo oo la sheegay in gabar yar ay ku dhimatay. wariyaha v o a magaaladaasi mukhtaar maxamed catooshe ayaa warbixintan soo diray. roobabka da'ayay waxa ay sababeen in biyo xoogan ay kusoo fatahaan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. waxaa ku geeriyooday biyaha daadka ee xaafadaha magaalada baydhabo soo galay gabar 18 jir ah, taasi oo la sheegay inay ka timid beer ku taalla duleedka magaalada baydhabo. maxamed aadan oo ka mid ah ehelada gabadha geeriyootay ayaa sheegay in la waayay gabadha geeriyootay kadib markii ay isku dayday inay ka gudubto biyo xoog u socday oo maraya agagaarka isha baydhabo. xaafadaha biyaha ay saameeyeen ee magaalada baydhabo waxaa ka mid ah xaafadda isha. wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka maamulka koonfur galbeed soomaaliya aadan maxamed cusmaan garaad ayaa sharaxay sida jawiga xaafadda isha uu ahaa habeennimadii xalay. bohoshii maxay aheeday isha, aniga xaafadda ishaan deganahay. bohoshii way soo butaacday. baydhabo fataxaada ka dhacday oo run ah. maxay aheeday xaafidihii oo dhan biyay galeen. annaga guriga aniga aan deganahay bohoshow ayuu u dhow yahay. yacni waxaa jira doleel oo bohosha biyaha loo furo oo kuga daraa jiray. doleelkii waa gufeynay, waxaan nidhi noo soo gelin. musqulihii gurigu ku yaaleen dhammaan ayaa soo butaaceen. dibadday soo mareen. xali toole 2 gaari baa meesha ii taallay aniga. markii gaari walba oo yacni motoorka iyo inta albaabaha hore qarsameen ayaan ka saaray. markii dambe waxaan dhigay hotel enow hortiisaan dhigay 2 gaari. waxaa teleefon u dilay booliiska iyo maxay ahayd militariga koonfur galbeed, iyagaa noo soo gurmaday. haddaanan gurmad xali toole aanan helin iyo ciidamada asluubta, haddii gurmadkooda aanan helin waa hafanahan biyaana hafin lahaa. wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka maamulka koonfur galbeed aadan maxamed cusmaan sidoo kale wuxuu sheegay in shacabka xaafadda isha xalay oo dhan aysan seexan, cabsina ay ka qabeen in biyo kale oo daadad oo hor leh ay soo galaan xaafadda isha. biyaha shacabka si xoogay u saameeyeen. guryo xalay guryaha waa laga baxay, waa lagu rafaaday. yacni sidee 12 xalay oo dhan aan u taagnayna waaga nooga caddaaday. ilaa haddaa lagu jiraa. ciidamadii way ku jiraan. ciidamadii xaalinta noo soo gurmaday yacni saaka kuwa kala ayaa bedelay. waa garta marka ma is dhihi kartaa haddii roobabka ay sii socdaan
fatahaadahan khasaare inay geystaan waa laga yaaba haa waan dhihi karaa khasaare weyn bay geysan karaan because meesha aad ka firaysa war meeshana biyo mareena kuu soo maraya aad laheyd haddayba biyihii sidii aakhira zamaankii la sheegaayo oo kale ay musqulihii iyo meeshii godneed dhulkaba ka soo butaacayaan lama dhihi karo yacnii lama filayo lama dhihi karo waxaa la filayaa mid tan ka daran la filaya ilaa deerta curud waay muddooyinkii ugu dambeeyey roobabka gobolka ka da'aya ayaa saameyn ku yeeshay deegaano gobolka baay ka tirsan waxaana fatahaad xooggan ay ka dhacday degmada Bardaale halkaasi oo haatan ay ka socoto gurmad lagu badbaadinayo dadka fatahaaduhu ay ku waxyeeloobeen Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA